بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد walaalyaal mar kale waxaad kusoo dhawaataan casharkeeni nutritionka iyo dietka ama cuntada iyo caafimaadka maanta hadduu alla idmo waxaan jeclahay in aan idinla wadaago cashar xaqiiqdii aad iyo aad muhiim u ah casharkaas wuxuu ku saabsan yahay cuntooyinka kuu fududeyn kara hilibka ama baruurta kaa saaran caloosha in aad iska ridid dad badan ayaa waxay i weydiiyeen maxaa cuntooyinka kaa ridi kara hilibka kaa saaran caloosha maxaa ka mid ah marka wax badan ayaan kasoo hadalnay casharo noocan oo kale ah laakiin maanta waxaan rabaa in aan si gooni ah aan uga dhigo casharkan cuntooyinka kuu fududeyn kara hilibka zaa'idka ah ee caloosha kaa saaran in ay kuu fududeeyaan in ay kaa ridaan marka saa ujeedaan cinwaanka waxa weeye cuntooyinka gubi kara ama kaa ridi kara hilibka kaa saaran caloosha cuntooyinka haddii aad ku dadaashid ama haddii aad cuntid ama haddii aad isticmaashid insha allahu tacaala waan hubaa in wax badan aad iskaga arki doontid waa haddii aad si joogto ah maalin walba aada u isticmaashid sababtoo ah aniga ayaa isku arkay aniga ayaa tijaabiyey aniga ayaa isticmaalay dad badan oo aan la taliyey ama aan u sheegayna way jiraan oo ku guuleystay marka waa tijaabo lagu guuleystay tijaabo la sameeyey tijaabo mar walba waxa waaye shaqeynayso waay insha allahu tacaala casharkan waa cashar xaqiiqdii qofkii raba inuu ku dhaqmo ama isticmaalo wax badan noloshiisa uu iskaga garan karo waaye waxaan ka sheekeynaynaa cuntooyinka badana aan cunno waxay u qeybsamaan 3 shay ayaa ku jira ama laga helaa ama ay u qaybsamaan kow waxaa ku jira protein wax la yiraahdo baa ku jira waxaa kaloo ku jira wax la yiraahdo fat waxaa kaloo ku jira carb ama carbohydrate wax la yiraahdo okay saddexdan shay in aad wax ka taqaanid muhiim ayay kuu tahay haddii aad rabtid hilibka zaa'idka caloosha kaa saaran in aad iska ridid ama haddii aad rabtid inaad cuntooyinka wax ka ogaatid waayahay proteinka waxa uu taro waan kasoo hadalnay waxa meelaha ugu fiican ee laga helana waa kasoo hadalnay wax yaraan ku celinaya proteinka aan ka hadlayno waxa weeye proteinka fiican yani waxa waaye wax ku tari kara ayaa loo baahan yahay inaad xoogga saartid waxaana laga helaa digirta iyo cuntooyinka qamadiga ah marka proteinka fiican in aad ku dadaashid ayaa rabaa insha allahu tacaala inaad marka hore xoogga saartid waaye tan waxaan siinaynaa plus mar walba ku dadaaleysaa fatka waxaa laga wadaa cuntooyinka subaga fiican laga helo ama healthy fatka laga helo healthy fatka waxaa ka mid ah afakaadhada oo kale afakaadhada aad bay ugu fiican tahay hilibka caloosha saarma in mataqaanaa rido aad bay ugu fiican tahay waxaa ka mid a oo kale saliidda zaytuunka ayaa ka mid ah waxaa kaloo ka mid ah nutska waxay yidhaahdaan ama looska waxay yidhaahdaan marka hal mar dabcan ma wada cunaysid laakiin waxaad u cunaysaa snaag ahaan oo kale aad u cunaysaa cuntada aad cunaysid baa wax yar ku darsanaysaa marka maxaan sheegnay healthy fatka markaan ka hadlayno afakaadhada tusaale ahaan oo kale nutska looska iyo olive oilsha oo kale ama saliid zaytuunka oo kale marka wax badan ayay kuu fududeynayaan marka fatka subaga fiican markaan ka hadlayno waxaan ka wadnaa cuntooyinka noocaas oo kale ah waaye isagana waxaan siinaynaa pluska so pluska macnaha waxa waaye waa badsanaysaa mar walba waad ku dadaaleysaa inaad cuntid qadadaad ku darsanaysaa yani waxa waaye quraacda haddaa cuni kartid oo kale waxa waaye waa ku darsanaysaa wax yar badanaa qadada ku fiican tahay waaye so proteinka waan kasoo hadalnay fatka waan kasoo hadalnay carbka waxaan siinaynaa minus haddii aad rabtid si fiican oo fudud in cuntooyinkan aan soo sheegay hadeertaan ay kaaga ridaan hilibka caloosha saaran carbohydrate-ka waad yareynaysaa
20%. meesha 100% aa ka cuni lahayd waa yareynaysaa. laakiin hadda cuntooyinkeena waxaan ka hadlay cuntada Soomaalida oo carbohydrate-ka aad ayuu ugu badan yahay. marka waxaa weeye labadan plus aan siinay, labadan tan plus aan siinay, laakiin carbohydrate-ka waxaan rabaa inaan minus ka dhigno. waxay kuu fududeynaysaa hilibka saaran calooshaada ama jirkaaga in waxa waaye si u dhaqsiyaha badan ee aad u arki kartid in uu kaaga dhaco. waxaa laga yaabaa inaad tiraahdid carbohydrate glucose baa laga helaa, mataqaana energy baa laga helaa. hadda waxaa la ogaaday cashar kale aan kaga sheekeyn doonaa insha allah. laakiin faadka fiican haddii aad badsatid sida afakaadhada oo kale ama nutska ama oilka olive oilsha oo kale haddii aad badsatid iyo cuntooyinka lamidka cuntooyin badan noocaas oo lamid ah jira in waxa waaye booskii carbohydrate-ka ay ku geli karaan. so qofkii nutritionka iyo dietka wax ka yaqaana ama baara ama cilmi baaris badan ka akhriya waxa weeye hadda faadka xoogga la saaraa, carbka waa la yareeyaa. marka protein fiican haddaa cuntid, faad fiican haddii aad cuntid, carbka haddii aad iska yareysid, macnaha isbedel weyn baa isku arki kartaa. cuntooyinkan saddexdan markii la isku daro waxaa la yiraahdaa macronutrients. hadda ka hor waan kasoo sheekeynay macronutrients ayaa la yiraahdaa. waayahay intaanaad xoogga saaraysaa. tan labaadaan rabo inaad xoogga saartid waxaa weeye cuntooyinka la yiraahdo micronutrients. cuntooyinka la yirahdo, cuntooyinkaas waxaa ka mid ah qudaarta aad ayaa u badsanaysaa. proteinka oo kale markaad cunaysid qudaar badan baad mataqaanaa samaysanaysaa, protein xoogaa yara ku darsanaysaa oo proteinka fiican aan soo sheegnay oo kale. healthy fatka wax yar oo fiicanaad ku darsanaysaa. dan xooga waxaa saaraysaa fruitka aan macaanka lahayn, mooska iyo qaraha iyo cambaha iyo babaya kuwaas maaha. laakiin waxaa xooga saaraysaa liinta noocyadeeda kala duwan oo dhan, liinta balbeelmada, liinta yani waxa waaye liinta caadiga mandariinka loo yaqaano yaryar iyo oranjiga tan loo yaqaano xoogaad saaraysaa. waxaa cuntooyin fruits fara badan oo fiican ayaa jira oo la dagaalama faadka caloosha. si gooni aan uga sheekeyn doonaa insha allah. laakiin waxaad ka tagaysaa fruitka macaanka leh oo iska ilaalinaysaa. nutska waan soo sheegnay, halkan aan kusoo sheegnay. nutska waxaa waaye looska, waxaa kamid a almonka, waxaa kamid a peanutka, waxaa kamid a walnutka, waxaa kamid a brazil nutka, waxaa kamid a ma garanaysaa cuntooyin aad u badanaa kamid ah. so nutska family aad u ballaaran waay. marka labadan qaacido haddii aad xoogga saartid, qaacidadan hore aad xoogga saartid, waxaan dhahnay proteinka fiican plus aan siinaynaa, waxaan dhahnay fatka ama subaga fiican plus aan siinaynaa, waxaan dhahnay carbka waa iska yareynaynaa minus baan siinaynaa. kuwan oo dhan waxaan siinaynaa plus iyo plus. marka dabcan waxaa waaye qaabkii cuntada loo cunaayay ay fiicnaa ayaad mar walba ula dhaqmaysaa. hal mar caloosha ma buuxinaysid, wax yar baad cunaysaa oo 2 saac 3 saacaad u dhexaysiinaysaa. yani waxaad ka ilaalinaysaa calooshaada in ay aad u gaajooto iyo weliba in aad u buuxisid, labadaasba waa ka ilaalinaysaa. marka dhexda ayaa iskugu keenaysaa. marka insha allah casharkeena maanta waxaan ka hadalnay cuntooyinka ku fududeyn kara ama mataqaana gubi kara hilibka caloosha kaa saaran in ay kaaridaan ama ay gubaan. waxaan jeclahay insha allah wax badan inaad ka faa'iideen casharkeena maanta. casharkan waa cashar 4 saac 5 saac loogu talagalay, waa cashar jaamacadaha laga bixiyo, laakiin waan soo koobaya insha allahu tacaala. mar walba waxaan isku dayaa in si fudud oo la fahmi karo aan usoo bandhigo. waxaan ka rabaa insha allah in aad dadka walaalaha kale aad la wadaagtaan, saaxiibadiin aad la wadaagtaan. inta aan casharka ku xiga aan iskaga arki doono waxaan kaga tegaa sidaas iyo salaanta islaamka. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.